sheekadu waxay ku bilaabanaysaa 4 wiil oo saaxiibo ah. Mid Maxamed ayaa la dhahaa, midna Naasir, labadii kalena waa saaxiibadooda. Markaas waxay hor fadhiyeen Maxamed gurigiisa agtiisa, wayna iska sheekaysanayeen oo way iska qoslayeen. Markaa xoogaa kadib, Naasir ayaa wuxuu keenay fikrad. Waxa uuna dhahay, qofkii geesiya waxaa laga rabaa inuu soo booqdo buurta jinka oo markaa u dhow tuuladeena. Hal mar ayay wada aamuseen. Buurta uu sheegaya Naasir waxaa lagu yaqaanaa jinka. Qofkii mar aadana ma uu ka soo laabto, haddii uu ka soo laabtana xaalad xun ayuu uga soo laaban jiray. Ugu dambeyn Maxamed ayaa hadlay, wuxuuna yidhi, aniga ayaa aadaya, Naasir oo haddaad adiga fulay ahayn, kaale ii raac. Naasir laftirkiisa waxaa haystay cabsi, laakiin ma uusan rabin in fulay loogu yeero maadaama uu isaga yahay qofka fikradda keenay. Sidaas darteed Maxamed inuu raaco wuu aqbalay. Maxamed ayaa toosh soo qaatay, kadibna waxay koreen Naasir gaarigiisii. Labadii wiil oo kale oo saaxiibadoodna meesha ayay kaga tageen. Naasir markaas gaariga wuxuu u kaxeeyay dhinaca buurta. Sida ay gaariga u wadeenba waxay arkeen marba markii kasii dambaysa sida buurta ugu sii dhowaanayaan inay agagaarkoo dhan mugdi noqonaysay. Markaas siday buurta afkeeda markay marayaan ayaa waxa isla markiiba wuxuu Naasir arkay in wax madow xoog ka hormaray gaariga hortiisa. Isla markii ayuuna qabtay gaariga oo uu joojiyay. Maxamed ayaa yaabay, wuxuuna ku yidhi, maxaad gaariga u joojisay? Kadibna Naasir wuxuu dhahay, wax gaariga hormara ayaan arkay. Isla markiina gaariga way ka soo degteen. Maxamed ayaa tooshka waday, wuxuuna bilaabay meeshii mugdigeeda inuu tooshka ku ifiyo. Sidii tooshka u ifinayeen waxba maysa arag. Xoogaa kadib ayuu wuxuu dhahay Naasir, aan dib u laabanno. Maxamed wuxuu ku dhahay, miyaa baqaysaa? Hadda ayaama buurta soo karnay. Xoogaa kadib waxay maqleen meel xoogaa saa nooga fogeen ciyaal yaryar oo ka qoslaya. Markaas ayuu wuxuu dhahay Maxamed, kaale ciyaalka yararkaa soo aragnay. Naasir wuu baqayay, wuxuuna ku dhahay Maxamed aan laabanno, laakiin Maxamed kama uusan yeelin. Xoogaa kadibna waxay u dhaqaaqeen dhinaca ciyaalka ay ka yeerayeen. Hase ahaatee siday marba markii kasii dambaysay ugu soo dhowaanayeen meesha ciyaalka ka yeerayeen, qosolkii wuxuu isku bedelayay oohin. Markii ay meesha ugu dambeyn gaareen cidna ma aysan joogin. Markaas ayuu wuxuu dhahay Naasir, haddaba aan degdeg ku laabanno. Maxamed ayaa dib u soo jeestay. Markaas wuxuu yidhi, meesha aan mari lahayn waa ilaawe. Markaas ayuu Naasir wuxuu ku xanaaqay Maxamed, wuxuuna ku dhahay, adiga ayaa tooshka watay, sidee baad u ilaawi kartaa meesha aan ka nimid? Hadda waxay joogaan buurta dhexdeeda, waxayna markaas cariga ka eegayaan hal meel ay ka garanayaan meesha u laaban lahaayeen. Laakiin Maxamed gabigiisa wuu ilaaway dhinaca ay soo mareen. Naasirna wuxuu bilaabay inuu Maxamed ku xanaaqo. Xoogaa kadib waxay maqleen naag codkeeda ay ka yeerayso buurta geeskeeda shishe. Markaasna waxay u ekayd qof u yeerayay ilmo yar. Markaasi wuxuu dhahay Maxamed, aan naagtaas codkeeda raacno, kadibna waxaa laga yaabaa inayna caawiso oo noo sheegto dhinaca ay naga xigtay buurta meeshii laga bixi lahaa. Naasir ayaa wuxuu ku dhahay, waxaa laga yaabaa inay jin tahay. Markaas ayuu wuxuu ku dhahay Maxamed, haddii ay xataa jin tahay annagu wax dhibaato maana geysan, waxaana si nabadaysan u weydiinaynaa meesha aan uga bixi lahayn sidaan. Haweeneyda codkeeda markii ay daba galeen ayaa waxay ugu dambeyn gaareen geed madow oo gubtay. Geedkaas waxaa ag taagneen islaan gabowday oo waayeel ah. Markaasina cunug ayaa dhabarka ka saarnaa. Markaas intuusan Maxamed la hadlinba ka hor, Naasir ayaa dhacay oo wuu suuxay. Maxamed markiiba wuxuu bilaabay inuu Naasir ruxo, asagoo magaciisa u yeeray oo isku dayay inuu kiciyo. Islaanta ayaa la hadashay Maxamed, waxayna ku tiri, ha isku dayin inaad kicisid, haddii kale adigana waa suuxaysaa. Markaas ayuu wuxuu ku dhahay Maxamed, maxaa dhacay? Waxay tiri, jirkiisa waxaa degay wiilkaygii yaraa, saas ayuuna hadda ku suuxsan yahay. Maxamed oo yaaban ayaa wuxuu dhahay, maxaa anaga saa nagu galaysaa? Waxba kuumaana geysan. Islaanta ayaa waxay ku dhahday, markii abuurta soo kariseen ayaa ciyaalkaygii wiilkii igu yaraa gaariga iga marsiiseen. Haddana ininka ayaa booskiina nii gelinaya oo ilmahayga ininka ayaa noqonaysiin. Tuulada markii dib loogu soo laabto, Maxamed reerkiis waxay bilaabeen inay ka walwalaan Maxamed maadaama uusan Maxamed ahayn qof guriga ka soo daahi jiray. Markaas waxay aadeen oo weydiiyeen Naasir reerkiisa. Naasir reerkiisa ayaa waxay u sheegeen in Naasir isagiiba uusan soo laaban. Markaasi waxaa la weydiiyey labadeedii wiil oo kale oo saaxiibadood ahaa, waxayna u sheegeen markaas in Naasir iyo Maxamed ay isku raaceen buurta weyn ee jinka. Markaas waxaa loo sheegay booliiska, oo booliiskii iyo dadkii tuulada dhan waxay bilaabeen inay isla raadiyaan. Buurtii ayaa la koray, si kasta ay buurta uga raadiyaan kor iyo hoos iyo gees kastaba waa laga waayay Maxamed iyo Naasir meeri jirib iyo cag dhigeenba. 2 bilood ayay ku qaadatay raadintii ay raadinayeen Maxamed iyo Naasir. Habeen habeenada mid ka mida wiilashii saaxiibada la ahaa Maxamed iyo Naasir oo Saalim la dhihi jiray ayaa wuxuu ku riyooday ayadoo eriyada ugu timid naag markaas islaana oo qabta dhar madow. Markaasna waxay ku tiri, Maxamed iyo Naasir waa meyd,
ee waxaad u tagtaa reerkooda waxaanad u sheegtaa inay tacsida u dhigaan. Subaxii markuu waaga baryey isla markiiba saas ayuu sameeyey wiilkii, wuxuuna aaday reerkii Maxamed iyo Naasir, wuxuuna u sheegay labadii wiil inay dhinteen. Markaasna waxaa la dhigay tacsidii, waxaana markaasi qof walba uu yaqaanay ka samray Maxamed iyo Naasir. 2 sano kadib ayaa dad markaa wadada marayay waxay arkeen Maxamed oo markaasi laamiga yaala, gacantiisii iyo lugtiisii bidixba way jaban yihiin, xaaladiisuna waxay ahayd mid aad u xun. Markaasi way soo kaxeeyeen waxayna keeneen saldhigga booliska. Saldhigga booliska markaasi wuxuu lahaa gaashaale cusub. Markii uu Maxamed arkayna wuu la yaabay qaabka uu yahay. Markaasi wuu gartay wiilka, wuxuuna bilaabay inuu faylkiisa furo, wuxuuna gartay wiilkan in la waayey 2 sano ka hor. Wuxuuna sidoo kale gartay in wiilkan iyo saaxiibkiisa Naasir la dhihi jiray in isku mar la waayey. Markaasi Maxamed ayuu u soo jeestay, wuxuuna ku dhahay, xagaad ku maqnayd intaan oo dhan, meeyaysa saaxiibka? Maxamed markaasi muuse awoodin inuu hadlo, wuxuuna ku hayay ma hadli karo. Gaashaalaha ma uusan rabin inuu Maxamed si fudud ku baxsado, sababtoo wuxuu isdhahay wiilka waxaa laga yaabaa in saaxiibkiisa intuu buurta geeyey inuu ku dilay. Markaas ayuu Maxamed su'aalihii ku bilaabay. Maxamed ugu dambeyn wuxuu bilaabay inuu hadlo, wuxuuna ku dhahay, markii islaanta nagu dhahday ilmahayga ayaa noqoteen ayaa markaasi waan miir daboolmay. Markii dambe ayaan waxaan ku soo kacay anoo ku dhex jiro god ka mida godadka buurta. Kadibna Maxamed intuu gaashaalaha eegay wuxuu ku dhahay, hadda aniga waxaa igu dhex jira 6 jin ayaa jirkayga ku jira. Markaas ayuu gaashaalay wuxuu dhahay, sidee ku garanaysaa inay 6 jin kugu jiraan? Markaas ayuu Maxamed wuxuu dhahay, markii aan ka soo kacay meesha waxaan arkay lugtayda bidix oo markaas burbursan, mana garanayo sida ay ku burburtay. Markaasna geesahayga ayaan eegay, waxaan cuntaa oo la cunana maysa oolin, aan ka ahayn jab rootiya iyo biyo. Jabkii rootiga ayaan xoogaa ka cuncunay, intii kalena waxaan u dhigay Naasir. Geeskayga ayaan eegay Naasir, waxaanan arkay inuu weli suuxsan yahay. Waxaan isku dayay inaan kaco, laakiin waan kici waayey maadaama ay lugtayda burbursan tahay, mana garanaynin waxa dhaawaca intaa lagii keenay. Anigoo xaaladda ku jiro ayaa kadibna waxaa noo soo gashay godkii islaan cajuusada. Kadibna waxay tiri, haddii iina samayn lahayn waxaad samayseen sidaan kuwiina jiri lahayn. Kadibna waxay isku bedeshay bisad madow, waynaga baxday. Anigana markaas waxaan u jeestay Naasir, waxaanan bilaabay inaan ruxo oo baryo inuu kaco. Xoogaa kadib waxaa maqlay cod Naasir jirkiisa ka yeeraya oo dhahaya, haddii aad faraha ka qaadi weysid asaga ayaan jirkiisa ka baxayaa, adiga ayaanan ku gelayaa. Maxamed ayaa kadibna wuxuu yidhi, cabsi ayaa i gashay, waxaanan dareemay sidii in wax lagaga dhufto madaxa oo aad u xanuun badan. Kadibna waan suuxay. Maxamed hadalkii markaas waxaa ka jiiray gaashaalihii, wuxuuna ku dhahay, Maxamed haddaa xataa isku day inaan naxariis kuu muujiyo, sidee arrintaada sheegaysa kugu aamini karaa? Maxamed ayaa wuxuu dhahay, haddiidaa aaminaynin adiga ayay kuu taalaa, laakiin faylasha dadka meydka soo saar, markaasna waxaad ka dhex helaysaa magacayga. Maxamed ayaa waxaa ku yidhi gaashaalihii, ma maskaxda ayaa cudur ka qabtaa? Maxamed wuxuu ku dhahay, kama qabo. Kadibna gaashaalihi ayaa soo saaray faylasha dadka meydka, wuxuuna markaas ka dhex helay magacii Maxamed. Kadibna sheekada ayuu Maxamed sii waday, wuxuuna yidhi, markii aan suuxay kadib xoogaa kadib waxaan soo kacay anuu qof madaxayga ku dul ooyayo. Markii aan indhaha furayna waxaan arkay inuu yahay Naasir. Aad iyo aad ayaan u farxay. Xoogaa kadibna waxaa noo soo galay ilmo yar, wuxuuna yidhi, cuntadaydii yaa cunay, biyahaygina cabay. Aniga ilmihii ayaa u jeestay, waxaan ku dhahay, maxaad annaga saa noogu gelaysaa, waxba niimaana geysan. Ilmihii ayaa wuxuu igu dhahay, annaga ma dhibno ilaa qofkiina dhibaateeya ma ahine, hadda jirkaaga ma galaa. Aniga waxaan sameeyey waa garan waay. Xaggana Naasir baa ka ooyayo, ilmaha markuu arkay wuu gariirayaa, ilmihiina xaggan ayuu taagan yahay. Xoogaa kadib waxaa noo soo galay buu dhahay gabar aad iyo aad u qurux badan, waxaana la socday nin aad iyo aad u gaaban. Gabadhii aniga ayay ii soo dhaqaaqday ayuu dhahay. Kadibna waxay tiri, ma rabtaa inaa meesha ka baxdin? Aniga waxaa ku dhahay, haa. Waxay tiri, waxaan kuu sheegaya maqal, waxaa lagaa rabaa bay tiri, waa inaad saaxiibkaa dishid, kadibna aad wadnihiisa ku hor cuntid boqortooyada iyo islaantii aad ilmaheeda ka dishay hortooda, kadibna meesha waa ka baxaysaa. Anigii waa naxay, kadibna waxaan u fiishay gadaal Naasir, waxaanan arkay isagoo dhoola cadaynaya. Kadibna wuxuu yidhi, Maxamed idil dhaqso si aad meesha uga baxsatid. Markiiba gacantiisa ayaan qabsaday, waxaanan bilaabay inaan meesha ku ooyo. Gaashaalihii ayaa waxaa arkay Maxamed intuu sheekada waday inuu bilaabay inuu faraha u taagtaago si la yaab leh. Kadibna wuxuu u yeeray askari, wuxuuna ku dhahay, Maxamed qabo
qolka ku soo xir, hadhow ayaan sii weydiin doonaa su'aalaha. Kadibna askariga qolka ayuu Maxamed geeyey. Maxaabiis kale ayaa qolka kula jirtay, cidnana uma dangelin Maxamed, qof walbana uu iska seexday. Habeenbarkii markay ahayd ayaa mid ka mid ah maxaabiista wuxuu u soo kacay Maxamed oo ay markaa garaacayso islaan cajuusada. Wadnaha ayay ka garaacaysay ayadoo qoslaysa, waxayna ku haysay adiga ayaa ilmahayga dilay. Markiiba dhinaca albaabka ayuu orday, wuxuuna ku dhahay soo carara. Askarta ayaa u timid, waxayna arkeen Maxamed oo markaas dhiig ka socdo ooyiyo oo meesha iska fadhiya. Markiiba askartii waxay bilaabeen inay u sheegaan arrinkii gaashaalihii. Gaashaalihii wuxuu ku dhahay Maxamed inta la soo qabto qol kaligiisa la geeyo. Qolkii kaligii markii la geeyey Maxamed wuxuu bilaabay inuu gariiro. Markaas ayuu ku yiri gaashaalihii mid ka mid ah askarta ha istaaga albaabkiisa hana ilaaliyo ilaa ay qoraxda ka soo baxayso. Habeenbarkii markii ay dhaafto waqtigaasi, markaas ayuu wuxuu maqlay askariga Maxamed khuuradiisa kaasoo aad u dheeraa. Markaas ayuu qolka furay, wuxuuna arkay Maxamed oo ay ag taagan yihiin 7 nin oo gagaaban. Kadibna ninkii qolka dib ayuu ka soo baxay, wuxuuna qorigiisa u qabsaday si xoogaa kadibna wuu ku laabtay. Wuxuuna arkay markaas Maxamed oo ay kor taagan tahay haweeney iyadoo ooyeysa oo Maxamed madaxa ka masaxaysa. Haweeneydii dhinaca askariga ayay soo eegtay, kadibna way kasii jeesatay, isla markiina waxay gashay jirka Maxamed. Ninkii markaas wuu suuxay, meesha ayuu ku suuxay askarigii. Askari kale ayaa meesha yimid asagoo wada shaah oo isdhahaya askariga meesha ilaalinaya aad u geysid. Markaasna wuxuu arkay qolkii oo furan markuu arkayna oo galay, wuxuu arkay askarigii oo meesha ku suuxsan. Kadibna gaashaalihi ayuu u sheegay, waxaana loogu yeeray ambalaasta. Markii la baarayna waxaa la gartay in ninkii askariga oo markaa u dhintay wadna xanuun. Gaashaalihii markaas wuxuu sheegay qof kasta oo xabsiga joogay inaana arrinkaas xabsiga la dhaafin, sababta ma uusan rabin dadkii tuulada joogay markaas inay arrintan ka cabsadaan. Kadibna wuxuu soo qabtay Maxamed, wuxuuna u soo jeeday dhinaca xafiiskiisa, wuxuuna ku dhahay Maxamed ii sheeg qaabkii uu ku dhintay askariga. Maxamed wuxuu bilaabay inuu ooyo, wuxuuna dhahay ma aqaani. Markaas ninkii ku adkeeyey, wuxuuna dhahay ii sheeg haddaba qaabkii uu ku dhintay Naasir iyo sida aad uga soo baxsatay buurta, sababta wasiirka ayaa isugaya. Wasiirkan wuxuu ku hayaa Maxamed meesha laga soo saaro, laakiin wuxuu rabaa gaashaalahan in Maxamed hadalkiisa uu qoro. Maxamed wuxuu bilaabay sheekada isagoo murugaysan, wuxuuna dhahay bil ayaan ku qaadanay godkii aan kaga jirnay buurta. Xoogaa kadibna waxaa noo timid islaanta cajuuska oo wadata ilmo meyda. Islaantana waxay islaantii ugu horreysay buurta ku aragnay. Gadaasheedana waxaa socday 50 qof oo ay ku jiraan ilmo iyo dumar iyo ragba. Markaas waxaa u jeestay Naasir, waxaana arkay isagoo ii dhoola cadayn sidii inuu imacsalaameynayo oo kale. Intuu Maxamed sheekada sheegayay, wuxuu bilaabay inuu gariiro. Kadibna wuxuu ku dhahay gaashaalihi askariga dhul ku qabo si uu u digo Maxamed. Kadibna cod ayaa wuxuu bilaabay inuu Maxamed ka hadlo, wuxuuna yiri dhaqso daa Maxamed sheekada ha dhamaystiree si uu gurigiisa iyo reerkiisa ugu laabto. Kadibna wuxuu dhahay gaashaalihii adigu yaa tahay? Wuxuuna dhahay codkii ka hadlayay Maxamed, aniga waxaan ahay Maarid, boqortooyada jinka mid ka mid ah. Kadibna wuxuu dhahay gaashaalihii maxaad wiilka miskiinkaas ugu samaynaysaan? Markaas ayuu wuxuu dhahay Maarid, annaga ma dhibaateyno ilaa cidina dhibaateysa mooyaane. Gaashaalihii ayaa haddana la hadlay, wuxuu ku dhahay intaa u geysateen kuma filna miyaa? Markaas ayuu yiri jinkii maya kuma filna. Markaas haddana gaashaalihii yiri haddaba miskiinka ma iska dishaan ilaa cadaab badan ayaa geliseen. Markaas ayuu wuxuu ku yiri jinkii annaga ma dili karno sababta waqtigiisi ma gaarin. Markaa kadibna codkii wuu joogsamay. Gaashaalihii ayaa wuxuu ku dhahay askartii qaada Maxamed, waxaana geysaan qolkii kale oo kaligiis xabsi geliya, ilaaliyana intii aad la joogtaana quraanka Ilaahay afkiina ha ka daynina. Markaas askartii waxay geeyeen qolka Maxamed, waxayna bilaabeen inay sheekaystaan si ay isku ilaawsiyaan jawiga cabsida ay ku jiraan. Xoogaa kadib waxay maqleen cod ka yeeraya qolka Maxamed. Gaashaalihiina sidoo kale way maqla. Markaasna waxay u soo dhawaadeen albaabka si ay u dhageystaan waxa qolka Maxamed ka yeeraya. Waxayna maqleen sidii inay meesha ka socoto kale sheekaysi aad u xoog badan, laakiin hal eray kama fahmaynin. Mid ka mid ah askartii ayaa furay albaabka, markaasna waxa muusa arag. Markii uu soo laabtay albaabka xirana, isla markii codku soo laabtay, haddana uu furay. Mar labaadkii uu furay wuxuu arkay 4 nin oo gaaban oo markaa Maxamed ku ciyaaraya. Xabadiisa ayuu soo qaatay, wuxuuna bilaabay inuu ku furo xabad. Markaasna askartii kale ayaa ka soo jeeday, waxayna ku dhaheen waxaan waajiban, maxaad kaga qaban kartaa xabadda? Gaashaalihii ayaa markaa arrintaa la yaabay, wuxuuna bilaabay inuu daba galo Maxamed iyo familkiisa, laakiin Maxamed famil muusan lahayn aan ka ahayn hooyadiis, taasoo ku geeriyootay isbitaalka maalmo kadib markii Maxamed la waayay. Askartii ayaa waxay ka codsadeen gaashaalihii inuu Maxamed u keeno sheekh quraan ku akhriya. Markaas wuu yeelay gaashaalihii, wuxuuna dhahay waa u keenayaa, laakiin marka hore waa inaan sheekada Maxamed u dhamaystiraa. Subaxii markay ahayd wuxuu keenay Maxamed xafiiskiisa, wuxuuna ogaa gaashaalihii inuu Maxamed uu sheekadan ku dhibo, laakiin waxay ahayd inuu marka hore sheekadan dhameeyo.
kadibna maxamed wuxuu bilaabay inuu sheekada sii wado. Wuxuu dhahay markii ay weydiisatay naagtii quruxda badneed inaan naasir dilo, aniga waan diiday. Markaasna waxay gashay jirkayga, waxayna u dhaqaaqday dhinaca naasir. Waxay bilowday inay tinta soo jiido, aniga ma awoodin inaan gacmahayga cesho, ayada ayaa jirkayga xukumaysay. Kadibna waxay bilowday inay godkii gubto, naasir ayay soo qabatay, waxayna ku dhex tuurtay dabkii. Aniga waxa kaliyaan awoodo waxay ahayd inaan daawado saaxiibkay naasir oo markaa dabka ku gubanaya. Sheekada markuu maxamed sheegay wuxuu bilaabay inuu ooyo, laakiin wuu sii wada sheekadii. Wuxuu yidhi markii ay naasir la dilay kadib 3 beri ayaa layga tegay, waxbana ma arkayno, mugdi ayaan ku dhex jiray. Laakiin waxaa jirtay jinniyad aad u qurux badan oo markaasi buurta joogtay, waxayna ii keeni jirtay cunto, ayada ayaana i caawin jirtay. Iyada ayaa jirkayga ku jirtay, iyada iyo islaan cajuusada iyo 4 nin oo gaagaaban. 3 beri kadibna waan suuxay, markaasna waxaan soo kacay anigoo laamiga yaala. Ma aqaan sida aan meesha ku soo gaaray, laakiin waxay arkay dad anigoo xaaladaas ku jiro, markaasna waxay keeneen saldhigga booliska sida aad u jeedaba. Markaas ayuu wuxuu ku yiri gaashaale, haddaba sidee ayuu u dhintay askariga habeenkii ku ilaalinayay? Markaas ayuu yiri maxamed wuxuu arkay buu yiri albaabka markuu furay 7 nin oo gaagaaban oo ag joogta. Markii uu xiray haddana soo laabtayna wuxuu arkay haweeney ooyayso agteeda taagan. Markii ay eegtayna wadnaha ayaa istaagay. Waxa ii sheegay ayuu dhahay jinka gudahayga ku jira. Wuxuu dhahay jirkayga waxaa ku jira jin xun iyo jin wanaagsanba, laakiin kan xun ayaa jirkayga maamulaya. Waxayna u kala duwan yihiin sida aan kala duwannahay oo kale, cuntadooduna way kala duwan tahay. Qaar ayaa waxay cunaan ruuxda, qaarna waxay cabaan dhiigga, qaarna waxay cunaan xaarka xayawaanada. gaashaaliha askarta ayuu wuxuu u sheegay in maxamed qolkiisa lagu xisho, sababtaas subaxii ayuu dhakhtar u keenayaa. Subaxii dhakhtarka markii la keenay, maxamed ayuu baaray, wuxuuna dhahay waxa lagu qasbayay maxamed in la geeyo isbitaalka si loo baaro jirkiisa oo dhiigna looga qaado. Waa la geeyey maxamed isbitaalka, waana laga qaaday dhiig, waxaana soo baxday inuu maxamed markaa qabo cagaarshow aad u xun. dhakhtarkii wuxuu sidoo kale u sheegay in maxamed uu cudurka la qabo, sidaas darteed waxaa lagu qasbayay in maxamed isbitaalka la dhigo, laakiin wuu diiday gaashaalihii sababtoo wuxuu ka baqayay haddii maxamed isbitaalka la dhigo inay dhibaatooyin waaweyn dhici doonaan. Markaas isbitaalka dhakhtarkii joogay wuxuu dhahay aniga waan ku ceebeen doonaa, sababtaa waa diiday miskiinkan in la geeyo isbitaalka, xaaladiisa inkastoo aad u xun tahay. Markaasi wuu iska fariistay gaashaale, wuxuu bilaabay inuu ooyo, sababta ma uusan garin wuxuu sameeyo. gaashaalihii oo ooyay ayuu maxamed arkay, wuxuuna ku dhahay maxaa dhacay ood la ooyeysaa? Markaas ayuu dhahay gaashaalihii iga raali noqo, waan ogaa xaaladaada caafimaad inay aad u xun tahay oo aanan ku khasbanay in isbitaalka lagu dhigo, laakiin kaama saari karo meeshan sababtaa dadka tuulada jooga ayaa sheekadaada maqli doona, way cabsan doonaan. Marka hore kaama saari karo ilaa aan baaritaanka dhameeyo. Markaas ayuu yidhi maxamed way dhammaatay baaritaankii, anigana wax kale oo aan dhaho ma garanayo. Markaas ayuu dhahay gaashaalihii uma dhammaanin baaritaanka, aniga ayaan go'aansanay goorta uu dhammaanayo, sababta hadday kugu arkaan dadka tuulada adoo xaaladda ku jira way baqayaan. Markii uu gaashaalihii tegay, maxamed markaas wuu seexday, wuxuuna bilaabay inuu ku riyoodo naasir oo kor fadhiyo. Markaasna wuxuu bilaabay inuu u cagajugleeyo maxamed. Sidoo kale wuxuu maxamed arkay ilmihii yarka oo markaasi ku dhintay buurta oo ay iyaga dileen. Sidoo kalena wuxuu arkay islaantii dhashay ilmahaas oo markaa ilmaha yarka madaxa u salaaxaysa iyadoo ooyeysa. Xoogaa kadibna way baaba'day. Markii ay baaba'day, maxamed hurdada ayuu ka soo booday asagoo fajaxsan. gaashaalihii ayuuna subaxii u sheegay. Markaasna gaashaalaha wuxuu ku dhahay istaji, waxaan kugu yeeri doonaa sheekh, quraan ayuuna ku saari doonaa oo caadi ayaad noqon doontaa. maxamed markaas wuxuu ku hadlay hadal la yaab leh, gaashaalahana xabad kama fahmin. Kadibna maxamed wuu seexday. gaashaalaha gebigiisaba 3 eray ayuu ka fahmay: nolol, dhimasho iyo cadaab. sheekh ayuu u sheegay markaa gaashaalihii arrinta maxamed. Markii uu arrinta maxamed maqlay, sheekhu wuxuu yidhi waa imanayaa. Markaasi gaashaalaha waxba kama galin inuu sheekha imanaya in kale, waxa kaliya uu rabay inuu hubsado in maxamed run ahaantii uu jin ku dhex jiro iyo inuu waalan yahay oo waxyaabo uu istusayo. subaxii markay ahayd, sheekha ayaa yimid. Markaasna gaashaalihii wuxuu geeyey qolka maxamed, wuxuuna ku dhahay qaqabta maxamed inta aan qur-aanka ku akhrinayo. sheekha wuxuu maxamed ku eegay indho naxariis leh, wuxuuna ku dhahay xagad ku maqnayd cunugaygiyo. Markaas ayuu dhahay maxamed waxaan ku maqnaa buu yidhi buurta ayaan ku dhumay, waxaana joogay xaggaas 2 sano. markastoo aan bili aadan ku dhex arkaba buurtaasi waa la dilayay.
markaa wuxuu bilaabay sheekha inuu ku akhriyo maxamed qur-aanka isaga oo madaxiisa u salaaxayo. maxamed markii uu qur-aanka maqlay wuxuu bilaabay inuu si aad u daran u qayliyo. askartii meesha joogana way cabsadeen. markaas ayuu wuxuu ku dhahay sheekhii, ka soo baxa jirka wiilkan, haddii kale wallaahi qur-aanka ayaa nigu gubayaa. maxamed ma uusan joojin qayladii, cidnana uma jawaabin sheekhii. markaa qur-aanka sheekha uu sii waday xoogaa kadibna wuxuu maqlay jin nin ah oo ka dhex ooyay maxamed jirkiisa oo ku haya, waa ku bariyaa jooji, lugtayda ayaa gubtay, waan ka soo baxayaa. sheekha qur-aanka wuu joojiyey. markaas ayuu jinka hadalka sii watay, wuxuuna yidhi, ilaahay wuxuu idinku manaystay bismillaahi raxmaani raxiim. muxuu maxamed iyo saaxiibkiis u akhrin waayeen oo ay naga dileen cunugayga yarkaa? markaas ayuu wuxuu dhahay sheekhii, kani waa insaan buu yidhi, insaankana ilowshihiisa aad ayay u badan tahay ee ka soo baxa. markaas ayuu yidhi jinkii, wallaahi kama baxayo. markaasi isqabsi ayay bilaabeen. markaasna markuu diiday jinkii inuu ka soo baxo, sheekha qur-aanka ayuu sii waday, maxamedna qayladiisa ayuu sii watay. xogaa kadib wuu joojiyey. markaas ayuuna ku yidhi gaashaaley sheekhii, kaale nala cun. markii cuntada bilaabeen, sheekhii wuxuu eegay maxamed, wuxuuna arkay maxamed inuu si degdeg u cunayo asagoo labadiisa gacmood isticmaalayo. markaasi dhirbaaxa ayuu ku dhuftay maxamed. markaasna maxamed wuxuu bilaabay inuu si tartiib u cuno. gaashaaley ayuu wuxuu ku dhahay, maxaa u dhirbaaxday wiilka? wuxuuna ku dhahay sheekhii, kii xoogaa ka hor cuntaynayay wuxuu aajin, markii aan dhirbaaxayna wuu cararay, haddana maxamed ayaa cuntaynaya. markii cuntada la dhammaystay, sheekha wuxuu u sheegay gaashaalaha inuu mashquulsan yahay, baryo kadibna uu soo laaban doono maxamed oo qur-aanka kusii wadi doono. sheekhii markii uu tegey, maxamed ayaa keligiis meel iska fadhiyay isagoo isfiirinaya, asagoo lugta burbursan tahay, kelinimo uu dareemayo. xogaa kadib wuxuu xasuustay inuu qof kale la dili doono maadaama uusan sheegin wixii uu gudaha ku haystay. markaasi wuxuu bilaabay inuu ooyo, sababta hadduu sheego wuxuu garanayaa inay sirtan arrin weyn tahay, haddii uusan sheeginna uu qof un dhiman doono. markaasi warqad ayaa waxay soo gaadhay gaashaalaha, taasoo sheegaysa in maxamed loo wareejin doono isbitaalka waalida. markaas ayuu gaashaalihii ka shallaayay inuu u sheegay dadkii ka sareeyay isaga. markaasi waxay sidoo kale u sheegeen gaashaalaha inuu maxamed arrintiisa yaraystay. gaashaalihii wuxuu bilaabay inuu fahansiiyo mowduucaysu u jiro, laakiin cidna ma aaminin. markaas wuxuu fariistay gaashaalihii gaariga dhexdiisa isagoo hooyaya. markaasna xoogaa kadib wuxuu maqlay codad ka yeeraya iskuulka ku xiga saldhigga booliska. kadib wuxuu soo xasuustay gaashaalihii inuu iskoolkan bari hore laga tegay. markii uu soo dhawaaday iskoolka albaabka, wuxuu arkay gacan madow oo markaas dhinaciisa loo soo taagayo. markuu xoogaa u dhawaadayna wuxuu arkay haweeney markaasi taagan, waxayna tiri, adiga waad ku fashilmatay inay maxamed badbaadisid. kadibna way qososhay. markaasi gaashaale wuxuu ku laabtay saldhigga booliska, wuxuuna soo kaxaystay 3 askari. markii la galay iskoolkii, si kasta u baaraanba way waayeen wax ku jira. markii ay kasoo bixi rabeen, waxay maqleen dabaqa labaad fasalada ku yaala qosolka yeeraya. markii ay fasalkii soo gaareen, waxay arkeen fasalkii maxamed oo dhex fadhiya, kaasoo qoslaya. wuxuuna yidhi, doqomayo, aniga waan iga soo baxsaday. isla markiiba mid ka mid a askartii 3 ahaa ayaa meesha ku suuxay, labadii kalena way soo carareen. markii soo ordayeen dhinaca albaabka intiisa gaarinba, waxay arkeen albaabka hortiisa oo uu taagay nin aad u weyn, waxaana ag taagneed haweeney, taasoo markaasi ay ugu qoslaysay si aad u cabsi badan. labadii askari waxay bilaabeen inay xabadda ku furaan, laakiin waxba kamay taraynin. hal askari ayaa wuxuu go'aansaday inuu nafsadiisa iska qaado, meesha ayuuna isku dilay. midkii soo haray wuxuu sameeyey ayuu garan waayey. markaasna wuxuu aaday fasalada qaybta kore ku taala, daaqadda ayuuna kasoo booday. markii uu dhulka kusoo dhacayna, lafihiisi aad ayay u burburen oo xaaladiisi way xumaatay. gaashaalihii oo banaanka taagnaa ayaa wuxuu bilaabay inuu waco qaybaha amniga sare asagoo caawinaad weydiisanaya. qaybaha amniga sare meesha way soo gaareen, iyakii ambalaasba. meeshana waa laga qaaday midkii daaqadda kasoo booday. gudaha markii loo galay iskoolka, waxaa la arkay midkii suuxay, in dhegtiisii midig ka maqan tahay, carabkiina laga goostay, qaybo ka mida jirkiisana ay ka maqan yihiin oo uuna meyd yahay. midkii isdilayna uu jirkiisa markaasi dhiiggiiba laga dhuuqay. iskoolkao dhanna waxaa isqabsatay urka dhimashada. waxaa yimaaday kuwa baara meydadka jirkooda, waxayna bilaabeen inay baaraan labadii askari oo dhintay. way la yaabeen sababtoo faraha keliya oo askarta jirkooda laga helay waxay ahaayeen isla farahooda. midkii dhintay oo suuxayna waxaa la gartay in lagu dilay ceejin, kii kalena oo isaga isdilay. kadibna waxay weydiiyeen gaashaalaha arrinta meesha ka jirta. markaasna wuxuu u sheegay sheekadii maxamed kow ilaa iyo dhammaad. markaasna way la yaabeen sheekada, waxaana loo diray arrintaasi midkii ugu sareeyey askarta. markii loo yeeray, waxaa loogu dhiibay qadiyadan inuu la xil wareego.
ninkii ugu sarreeyay ciidamada. Waxa ugu horeeya uu sameeyey waxay ahayd inuu wareysto gaashaalihii. Markii uu wareystayna wuxuu bilaabay inuu ku xanaaqo gaashaalaha, wuxuuna ku dhahay arrintan waad ka yaraysatay Maxamed, markii lagaa rabay inaad arrintiisa u gudbisay qaybaha amniga sare uma aadan gudbin, sidoo kalena uma aadan gudbin isbitaalka waalida. Markaasna wuxuu ku yidhi haddii run ahaantii uu Maxamed jin qabo waxaa lagaa rabay inaad isla markiiba noo soo sheegtid, sababtoo ah haddii aad noo soo sheegi lahayd askarta ma aysan dhimateen. Haddana waxaan kuu ballanqaaday inaan shaqadaada kaa ceerin doono. Madaxa ciidamada wuxuu u sheegay askarta inay qabtaan gaashaalaha kadibna ay qol ku soo xiraan. Markaa kadibna wuxuu u tegay ninkii ka soo booday daaqadda, markaasna wuu wareystay. Wuxuuna u sheegay askarigii inuu ku dhex arkay Maxamed oo fasalka dhex fadhiya. Kadibna Maxamed ayaa la soo qabtay, wuxuuna bilaabay inuu wareysto. Wuxuu ku dhahay xagaad ku maqneed salaad subaxii maanta. Markaas ayuu wuxuu yidhi Maxamed qofkii fasalka ku jira aniga ma ahayn ee wuxuu ahaa jin aniga isakay dhigaya. Markaas ayuu ku qoslay madaxa ciidamada, wuxuuna ku dhahay waan u jeedaa buu yidhi inaad ku ciyaadhay gaashaalahan doqonka maskaxdiisa. Markaasna wuxuu amray askartii inay Maxamed ku xeshaan xabsigii goonida ahaa, kadibna ay lugaha kaga xiraan silsilado. Maxamedna habeenkii dhow wuu ooyay. Markaasi warqad ayaa la diray subaxii, waxaana loo diray qaybaha amniga sare iyadoo la weydiisanaya amar loogu wareejiyo Maxamed isbitaalka waalida ah. Markaasna Maxamed wuxuu yidhi intaan la ii wareejin isbitaalka ka hor ma awoodaa inaan sii macsalaameeyo gaashaalaha. Markaasna wuu ka yeelay madaxa ciidamada. Maxamed markaas waxaa loo geeyay qolkii gaashaalaha ku jiray, wuxuuna ku dhahay gaashaalihii wallaahi ma jirto cid i caawin karta aan ka ahayn Ilaahay, kadibna adiga waxaa lagaa yaabaa maalin maalmaha ka mid ah inaan kuu soo baahdo ee may caawinaysaa. Markaas ayuu yidhi gaashaalaha haa waa ku caawin doonaa. Markaa kadib Maxamed waxaa loo wareejiyey isbitaalka waalida isagoo si adag loo ilaalinayo. Habeenkii markay ahayd madaxa ciidamada wuxuu hurday xafiiska isagoo markaasi khuuradiisa laga maqlay meel dheer. Markaasi waxaa sidoo kale qolka ka yeerisay sharkan, ma uusan maqnayn. Xoogaa kadib sharkantii way sii dheeraanaysay. Markuu indhaha kala furay wuxuu arkay haweeney hortiisa fadhido taasoo aad u cabsi badneed, waxayna u dhoola cadaynaysay si la yaab leh. Markii uu arkay arrintaas isla markii buu ka soo dhex cararay xafiiska. Askartii ayaa aragtay, wuxuuna ku dhahay maxaa dhacay. Wuxuu arkay haweeney cabsi badan ayaa dhex fadhiday meesha. Ayaga way aamini waayeen. Xoogaa kadibna waxay maqleen sharkan ka yeeraysa qol ka mid ah. Markii codka daba galeen qolka ayay galeen, waxba way ka waayeen aan ka ahayn mid ka mid ah askarta oo fadhiya oo TV-ga daawanaya. Hortiisana waxaa fadhiday haweeney. Markaasna waxay u soo jeesatay dhinacooda, waxayna ku tiri ka baxa qolkan haddii kale waan igalayaa. Kadibna dhinaca derbiga ayay u dhaqaaqday, derbiga ayayna dhex gashay. Markaa askarigii wuxuu bilaabay inuu gariiro. Madaxii ciidamada ayaa wuxuu ku dhahay maxaa dhacay. Markaas wuxuu ku yiri haweeney ayaa sidaa igu tiri, derbiga ayayna gashay. Markaa wuu xanaaqay, wuxuuna dhahay waxaasoo dhan waxaa ka dambeeyay gaashaalihii iyo Maxamedkii doqomada. Markaa wuxuu u tegay qolkii uu ku xirnaa gaashaalihii. Baskoolada ayuu madaxa kaga qabtay, wuxuuna ku dhahay wallaahi waa ku dilay haddaa ii sheegi weyso waxa meesha ka socda. Markaas ayuu wuxuu dhahay gaashaalihii ilaa maalinkii uu Maxamed yimid meeshaan waxaan arkaynay dhibaatooyin waxaana dilay nimankii askarta ahaa jin. Markaas ayuu wuxuu dhahay Maxamed ma sixran yahay. Wuxuu dhahay may ee Maxamed jirkiisa waxaa ku jira 6 jin. Markaas ayuu wuxuu yidhi madaxii ciidamada haddii aan arko jin madaxa ayaan kaga istaagi doonaa. Subaxdii xigtay gaashaalaha waxaa soo gaadhay warqadiisii shaqo fariisiinta, sidoo kalena waxaa soo gaadhay in Maxamed loo wareejiyey isbitaalka waalida. 2 bari kadibna waxaa la helay madaxa ciidamada oo markaas isagoo meyda oo yaala xafiiskiisii, mana la garanayo waxa la dilay. Agtiisa waxaa taalay markaa cajalad taasoo duubneed. Markii la shiday cajaladda waxa kaliya laga maqlay waxay ahayd codadka jinka, kuwaasoo markaasi u cagajugleynayay madaxa ciidamada iyo isagoo baryaya. Markii ay maqleen dadkii tuulada arrintaas, dad badan oo ka mid ah way ka carareen tuuladii. In ka badan 9 bari waxaa la arkay Maxamed oo meyda isagoo salaad subaxii tukanaya iyo madaxiisa qarxay. Waxaa ag taalay warqad ay ku qoran tahay dhiig, waxaana ku taalay waxay ku socotaa gaashaalaha. Gaashaalihii ayaa waxaa bilaabay inay raadiyo mid ka mid ah shaqaalayaasha isbitaalka. Si adag ayuuna ku helay sababtoo ah markii uu dhintay madaxa ciidamada isaga laftirkiisa tuulada wuu ka tegay. Gaashaalihii warqadii ayuu akhriyay, wuuna naxay sababtoo waxaa ku qorneed Maxamed inuu guursaday intuu buurta joogay naag jin ah, markaasna ay u dhashay wiil.
wuxuu ku yidhi Maxamed, wiilkayga meesha iga soo qaad, wax dhibaatana kuma gaari doonto. Gaashaalihii wuxuu bilaabay inuu ooyo sababtoo wuxuu soo xasuustay ballantii uu ka qaaday Maxamed. Markaasna Maxamed warqadda wuxuu ugu tilmaamay meesha uu wiilkiisa yaalo. Sidoo kale wuxuu Maxamed warqadda ugu qoray gaashaalaha inuu meeshaas aado casarka kadib. Markaasi wuxuu ku soo laabtay gaashaalihii tuulada, wuxuuna bilaabay dadka inuu weydiiyo meesha uu buurta ka xigo. Dadkii u tilmaamay meeshay buurta ka xigto ayagoo laakiin uga digayay inuusan meeshaas aadin. Kadibna gaashaalihii buurtii ayuu aaday, wuxuuna meesha ka helay wiil yara oo aad iyo aad u qurux badan, markaasna ooyaya. Gaashaalihii wiilka yarka laabta ayuu gashay, wuxuuna bilaabay inuu la ooyo, wuxuuna ku dhahay bas hadda aniga aabbahaayoo kale ayaan ahay. Gaariga ayuu saartay, dib ayuuna ugu laabtay gurigiisa. Markii uu gurigii aaday, xaaskiisa wuxuu u sheegay ilmahani inuu dhalay saaxiibkiis, asaga iyo xaaskiisna ay shil gaari ku dhinteen. Markaasi muddo badan kadib waxaa laga helay warka ah in saldhiggii booliska uu gubtay, sidoo kalena iskoolkii ku xigay uu gubtay, gaashaalaha gurigiisana uu gubtay, asaga iyo xaaskiisii iyo gabadhiisii yareed meydkoodii iyagoo qalalay jirkoodii oo gubtay in laga dhex helay guriga. Dariskii waxay sheegeen in markaasi muddo 1 sano oo dhan uu gaashaalaha ka dacwoonayay bisad madow, taasoo gurigiisa soo istaagi jirtay markay qoraxda dhacdo kana dhaqaaqi jirtay markii salaad subax la gaaro. Sidoo kale ilmihii yaraa oo Naasir oo Maxamed kala dardaarmay gaashaalaha inuu u bixiyo Naasir waa la waayay meel uu jiro. Ilaa haddana cidna ma oga meeshuu ilmaha yarka ka baxay.